wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiiba meel walbo oo aad dunida iyo caalamka oo aad ka joogtaan waxaan hawada idinka leeyahay toddobaad wanaagsan iyo muuqaal kale xilli kasto goor waliba waxaad baraha bulshada sida facebookyada tiktok iyo waliba aalada youtube-ka waxaad kula kulmaysaa muuqaalo kaa farxad geliya iyo kuwa kaa fajiciyo mararka qaar yaab iyo ambaka ku geliyo haddaba xaragga fanaaniinta ama wariyaasha dowladaha qaarkood miyay ka dhigteen kuwa markaasi oo si caadi ah mise waa mid dowlada ama shakhsiyaad gaar dana leh gaargaar ka lahi oo sidaasi loogu cadiba wariyaashu waa kuwa inta badan u adeega bulshadana soo tawiyo ama soo warama sida dhibaatooyinka kala duwan ay ku jiraan ama waxyaabaha kala duwan ee bulshada dhexdoodii ee mararka qaar ka dhaca dowladaha ayaa inta badan waxaa loogu baahan yahay ama laga doonayaa in ay caawiyaan sida dadka la soo xog tabinayo ay dhibaataysan yihiin haddaba maxaase xilligan keeno in wariyaasha si joogta loola dabakaco xarag aanun anshax ama mararka qaar oo aanan sax ahayn toddobaadkan waxayna muuqaalkan aynu ku qaadaa dhigaynaa wariye cabdimaalig muuse cooldoon waa wariye rugcadda oo islamarkaa baahiyo muuqaalo dad badan ay dhibaataysan yihiin kuwaasi mararka qaar ay shacbiga u kacaan islamarkaana loo adeego ayna helaan dhibaatooyinka ay ka tabanayaan cabdimaalig muuse cooldoon sida wararka warbaahinadu ama baraha bulshada laga dheehan karo wuxuu islamarkaa uu tabiyey warbixin ka hadlayso isbeddelka lagu samaynayo dadweynaha muslimiinta ee ku dhaqan dalka ama jamhuuriyadda Somaliland haddaba cabdimaalig muuse cooldoon waa wariye rugcadda oo ku sugan oo horaantiisii uu ku sugnaa Somaliland ee jamhuuriyadda iskeedii madax bannaanida isugu dhawaaqday wuxuu ka warbixiyey in mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalo magaaladaasi dadka ama dhalinyarada qaarkood lagu baro waxyaabo aanan anshaxa diintu aanan raalli ka ahayn sida in la bedelo dhaqankooda wanaagsan uuna fariyey suubanaheena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu islamarkaa tobiyey in islamarkaa ay halkaasi ay yimaadeen dad doonayo inay dhaqanka bulshada ay ka bedelaan sida in rag iyo rag isguursan karo ma diinteennu ayaa taasi qabta wuxuu xog tabiyey in dumarka inta badan ay isguursan karaan ma diinteennu ayaa taasi qabta haddaba intayna barnaamijku u gudagelin adigu like saar oo gambaleelka iyo sheel noo dheh ha gaaraan asxaabtaadii ee wanaagsan adigoo kale waddamaha qaarkood ayaa jiraan in wariyaasha ay ku nool yihiin xorriyad wanaagsan oo ay leeyihiin islamarkaana iyagoo soo tabinaya warbixin anshaxa aanan ka dheerayn waryuhu wuxuu inta badan u adeegsadaa erayo islamarkaana loo soo tababaray xirfad gaarna oo u leeyahay inuu ka hadlo waxyaabaha wanaagsan iyo waxyaabaha islamarkaana dhaqanku aanan raalli ka ahayn wuxuu u adeegi karaa si sax ah asagoo adeegsanayo erayo aanan dowladdu ama meelo qaarkood oo shakhsiyaad aan iraahde oo aanan gafku ahayn hadday dhacdo inuu erayo ceenkaasi uu tabiyo waa inuu u adeegsadaa siyaabo oo aanan loo malaysan karin inuu gaf yahay balse waxyaabo tusaale dhow uu bulshadoona tusi karo live news Somali TV ayaad nagala socotaan akhyaartuna dhageysanayso iyo waliba kuwana daawanayso sheel gray oo dhanka commentiga noogu reeb aragtidaada haddii aad tahay shakhsiyaad doonayo inuu si toos noola soo xiriiro oo si cod ahaan aragtidiisa ama fikrad ahaantiisa uu nagala soo dhiibto wuxuu nagala soo xiriiri karaa telefoonku yahay +254 4172709 haddii aan si kale u dhigo waa +25 afar toddobo hal toddobo labo eber 9 dhanka WhatsApp-ka ayaa noogu soo duubi kartaa aragtidaadii sababta cabdimaalig muuse cooldoon loo xiray adigu ma kula saxsan tahay haddii uu tabiyey waxyaabo liddi ku ah diinteena suuban
haddii jawaabtaadu ay haa tahay uu ku saxan yahay ku soo gudbi aragtidaada waa inoo muhiim magacaygu waa daacad oo toddobaadkan idin leh la soco Live News Somali TV xog badan ayaad ku ogaan doontaa waxa ka dhacaya dalka iyo deegaankaagii ha ilaabin inaad sheel gareyso like noo saarto muuqaaladaani allaha ku wanaajiyo haddii aad intaasi oo dhan aad noo samaysid mahadsanidin